sida loo macaamile armaarka maqaadiisu waa ta soo maaha maqaadi waa ta soo maaha bal meesha fiiri marka waxaan dhigay maanta xabad gudoomiyaha Habiqleyso Group Daahir Cabdulle Calasow ayaa waxa uu dib u soo cusbooneysiiyay weerarka ka dhanka dadka ay isku hayaan social media waxaana uu jabsaday oo gebi ahaanba uu hawada ku cunay barta YouTube-ka ama account-ka YouTube-ka Qadar Murtimaal iyo dhankiisa walaac iyo walwal xoogan la soo diristay kadib markii gebi ahaanba gacantiisa laga bixiyay ama laga saaray bartiisa YouTube-ka akoonkaasi imika uu gacanta ku hayo Daahir Cabdulle Calasow. arrintan ayaa waxay ka dhalatay dagaal xoogan oo dhexmaray Qadar Murtimaal iyo sidoo kale dhalinyarada daacadda u ah Daahir Cabdulle Calasow. Daahir Cabdulle Calasow ayaa waxa uu sheegay in uu Qadar Murtimaal xadgudub xoogan u geystay qaar ka mid ah asxaabtiisa sidoo kalena dhibaato xoogan uu ku hayay qaar ka mid ah dhalinyarada social media adeegsato waxaana uu ku eedeeyay dhaleeceen uu dusha uga tuuray arrimo dhowr oo la xiriiray xadgudub ceebeen aflagaado dacayad ka dhan ah dadka social media isticmaalo kuwaasi oo uu sheegay in siyaabo kala duwan uu gafaf kala duwan ugu geystay horey. Daahir Cabdulle Calasow ayaa barta YouTube-ka Qadar Murtimaal waxa uu gacanta u geliyay nin lagu magacaabo Yacquub Siyaad oo ka mid ah dhalinyarada social media adeegsata. Daahir Cabdulle Calasow ayaa sidoo kale waxa uu wacd ku maray in uusan dib ugu soo celin doonin YouTube-kaasi ama akoonka YouTube-ka Qadar Murtimaal isla markaana ay tahay shuruudo aad u tiro badan oo uu doonayo in uu ka soo baxo una hoggaansamo ka hor inta uusan ku wareejin bartiisa YouTube-ka. arrintan ayaa waxa aad u soo dhaweeyay dhalinyarada ku hareeraysan Daahir Cabdulle Calasow ee ka amar qaadata kuwaasi oo aqoonsan inuu yahay madaxweynaha social media. haddaba sida aynu la soconno ma ahan markii ugu horreysay Daahir Cabdulle Calasow u dhacayo ama awood u yeelanayo inuu maamusho akoonada kala gedsan ee YouTube-leyda qaar ka mid ah. horey waxa uu sidoo kale u jabsaday oo ugu dhacay haddaba dhowr akoon amaba dhowr YouTube oo ay leeyihiin dad waaweyn oo social media caanka ah. Daahir Cabdulle Calasow ayaa waxa uu dhaliil xoogan u jeediyey Qadar Murtimaal waxaana uu sheegay in dhibaato xoogan uu u geystay dad kale ka mid ah dadka ay isla ceeshaan sidoo kalena waxyaabo badan uu ku eedeeyey. haddaba live barta TikTok-ga oo ay kaga jireen qaar ka mid ah dhalinyaradaasi iyo Qadar Murtimaal ayaa waxaa ka dhashay tafaraaruq xoogan iyo khilaaf kaasi oo isu bedelay in Daahir Calasow uu gebi ahaanba maamusho oo uu u dhaco akoonka YouTube-ka Qadar Murtimaal. Qadar Murtimaal oo ka mid ah dadka inta badan adeegsada barta YouTube-ka ayaa imika waxa uu ku andacoonayaa in dhibaatadaasi loo geystay ay tahay mid xadgudub ku ah shakhsiyadii sidoo kalena bariiskii halkaasi uu ka heli jiray imika gebi ahaanba uu meesha ka baxay waxaana uu wadaa dadaalo uu ku doonayo inuu dib uu kusoo ceshado oo dib gacantiisa ugu soo celiyo YouTube-kiisa. haddaba muddooyinka ugu dambeeya Daahir Cabdulle Calasow iyo dhalinyarada kala gedsan ee social media adeegsato ayaa intooda badan waxaa aad uga dhex aloosnaa dagaal iyo sidoo kale khilaaf aad u xoogan. sidan oo kale ay isku khilaafeen ama khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay Daahir Cabdulle Calasow iyo sidoo kale Nicmo Joker oo marar badan Daahir Cabdulle Calasow ay inta badan fooda isku dareen aaladda social media welina xifaaltanka iyo khilaafkooda uu yahay mid halkiisa uu taagan yahay ayaa marar badan waxa uu ku eedeynayaa in ay jiraan dad badan oo Nicmo Joker aad markaasi u taageero oo Qadar Murtimaal uu ka mid yahay isla markaana uu sheegay in haddii markaasi ay isqabtaan isaga uu ka adkaanayo. haddaba Daahir Cabdulle Calasow ayaa digniin u diray Qadar Murtimaal waxaana uu sheegay in sidaas oo kale YouTube walba oo uu furto uu awood u yeelanayo inuu maamusho sidoo kalena uu isticmaalo akoonkiisa. haddaba Daahir Calasow waxa uu caan ku yahay ama caadadiisa ay tahay inta badan isticmaalka aaladda social media sidoo kalena xilliyada qaarna sida uu isugu yeeray isaga qudhiisa magacaasi uu la baxay madaxweynaha YouTube-ka ama social media in uu sheegay in uu jabsan karo YouTube-ka qaar ka mid a dadyowga kala duwan ee dagaalka uu kala dhexeeyay iyo qof waliba oo isaga isu soo taaga sida uu hadalka u dhigay. haddaba muddooyinka ugu dambeeyay arrintan ayay ahayd mid sii xoogeysanaysa. waxaan ognahay Qadar Murtimaal qudhiisa in dhibaato aad u xoogan uu kala kulmay xaaskiisii hore oo inta badan social media khilaafkoodu waa mid aad u xoogeystay
wixii intaasi ka dambeeyana sidoo kale waxa uu ku xoogeysanayay soo gudbinta dhacdooyinka kala duwan baraha bulshada waxyaabaha ka dhaco falalka markaasi inta badan ka dhex dhaco social mediaha dhawaanay ahayd markii uu soo bandhigay cadeymo dhowr oo la xiriiray qaabka maxamed buskud iyo xaaskiisa ay isu guursadeen iyo arrimo la xiriira xaaskaasi maxamed buskud oo uu sheegay in ay tahay markaasi haweeney nin kale u dhaxda isla markaana iyadoo xarig xalaal ah ku xidhan yahay usoo dhuumatay markaasi buskud sida uu isaga qabo arrintaasi uu daahir calisow uu dib u soo celiyey isla markaana uu sheegay in waxyaabahaasi aadka u badan fideoyadiisa oo mid mid u dul eegayay isla markaana uu eegaya inta badan waxyaabihii halkaasi uu soo gelinayay oo uu sheegay in xushmadda ixtiraamka iyo sidoo kale dhaqanka suubanba gebi ahaanba uu ka weecday qadar murtimaal sida uu hadalka u dhigay haddaba waxaan sugnaba qadar murtimaal iyo qaabka uu isagu dib ugu soo hanan doono bartiisa youtube-ka waxaynu ognahay aaladan social media in cawaaqib aada u daran ay leedahay si mararka qaar oo khilaafkan oo kale uu soo kala dhexgalo dadka social media isticmaalo waa ay isriboodaan fariimo kala duwan ay markaasi iska gudbiyaan taasi oo dabadeedna horseeda in gebi ahaanba hawadii lagu cuno youtube-ki si kastaba haatee daahir calisow sida muuqato awoodda iyo cududa uu sheeganayo qaar ka mid a dad social media isticmaalo ayaa kuwo markaasi loo taag waaye oo dad badan aada moodo in weli markaasi ay aada oga baaqsanayaan inay isu soo taagaan daahir cabdullahi calisow sabab la xiriiro awoodda uu ku maamulanayo social mediaha allah ayaa awood leh hase yeeshee haddana daahir calisow oo isku qeereeya inuu yahay shaqsi aada markaasi aaladan wax badan ugu og sidoo kalena aada ugu firfircoon marka ay timaado in uu la wareego oo gacanta dadyooga kale uu kasoo wareejiyo youtube-ka iyo sidoo kale social media qeybihiisa kala duwan haddaba dagaalkii ka dhex taagnaa daahir cabdullahi calisow iyo sidoo kale naciimo joker oo ahaa mid markaasi soo jiitamaya muddooyinka ugu dambeeyay welina aada moodo in khilaafkooda uu aada u taagan yahay marar badan daahir cabdullahi calisow waxa uu dhaleeceen dusha uga tuuray naciimo joker waxa uu soo bandhigay muuqaalo kala duwan oo dacayada islamarkaana uu markaasi la xiriirinaya naciimo joker arrimo badan oo fadeexaha naciimo joker qudheeda daahir calisow hanjabaad kala duwan ay baraha bulshada u marisay dhaleeceen taasi lamid ah ay usii marisay social mediaha isqabqabsigoodan waxauu ah mid aada uga sii xoogeysanaya social mediaha marba marka ka dambeysana waxa aad moodaa daahir calisow inay isu dhegan yihiin hadba qof kale oo cusub sida social mediaha aynu ku aragna caadadana ay tahay sii wad soo wad social mediaha oo ah aalad markaasi laba sida lamid ah midi laba seef leh oo faa-iido khasaarana laga dhaxlo mararka qaarna qofka social media adeegsado isagoo meel xasaasi ah ku jiro waxaa suuragal ah in uu ku waayo haddaba wixii uu kusoo tiirta cabeelayay oo xooga iyo sidoo kale kartida badan uu kusoo bixiyey uu soo geliyey juhdigana uu ku bixiyey ee youtube-ka oo imika lala wareegayo taasi oo ah waxyaaba ugu badan ee social mediaha aada markaasi uga dhex taagnaa muddooyinkii aynu kasoo gudubnay waxaana rajeynaynaa arrimahan in ay noqdaan kuwo gebi ahaanba joogsado isu tanaasul iyo isjaceyl bulshada dhexdeeda ka dhex abuurmo haddaba muuqaalkan haddii uu kusoo gaaray oo uu ku anfacay fadlan subscribe inoo saar sidoo kale laygare muuqaalkan ku sheer garee bogaga kale asxaabtada la wadaag si fariinta iyada ay u gaadho iyo muuqaalada halkan aan kusoo gudbana si aad ula socoto muuqaalkan kan ka dambeeya ama kan kiisi xiga fadlan rukumo janalkan gambaleelka furo qeybta commentiga ra'yigaaga aragtidaada inoogu